waxay la kulmeen ra'iisul wasaaraha si fiican buu u soo dhaweeyey waxay ka wada hadleen ra'iisul wasaaruhu iyo tiimkii iyo aniga iyo wasiir ducaale iyo taliyaasha ciidamada waxaan u soo gudbinay baahidayada iyo sida ay wax yihiin waxaan u sameynay presentation oo ah baahidayada meeshaan u baahannahay waxaana hor yaalla muhiimadda uu gobolkan u leeyahay haddii la xoreeyo ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha naga hortaagan in la xoreeyo dib u habeynta iyo dib u hawlgelinta ciidanka qaybihiisa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxyaabaha naga hortaagan challenge-kana haysta ee ay tahay inay naga caawiyaan marka iyagii ra'iisul wasaaruhu si fiican bay aan isku wada fahanay dhammaanteen kadibna waxaan soo booqannay meelaha la doonayo in ciidanka lagu xireeyo sida saldhiggii booliska oo burbursan gebi ahaanba aan rabno inay naga caawiyaan dib u dhisaan si boolisku u guto waajibaadkiisii ahaa amniga inuu sugo amniga magaalada iyo gaar ahaan amniga gobolka Galmudug waxa kaloo ay soo booqdeen xarunta nabad sugidda oo wiilal dhalinyar oo ciidanka loo qaatay ay ku jiraan iyada lafteeda waxaana ay tusaynay inay naga caawiyaan iyagana sidii tababar iyo dib u dhis loogu samayn lahaa waxa kaloo booqdeen qaybta 11aad oo ahayd xaruntii ciidankii marka laga reebo qaybta 16aad ugu awoodda badnaa ee Soomaaliya oo burbursan isla markaana ciidanka Al-Sunna lagu diiwaangelinayo oo diiwaangelintii iyadoo socota ayay booqdeen ciidankii taagan yahay la diiwaangelinayo waad u jeedeen burburka ka muuqda xerada inay dib noogu dhisaan waa rabnaa at the same time in ay noqoto meesha ciidanka lagu tababari doono ayay ahayd marka arrimihii aan soo qaadnay iyo waxyaabihii aan ka codsanay oo dhanna si ful ah ayay nooga aqbaleen waxaan mahad gaar u celinaynaa dowladda Qatar oo ku hawlan inta badan مساعدة المدة الصومالية جرب تاجر سجى دبعتها هذا كتير وقبل هلا جرهنا وزارة القشان لقى واحد مرة ربنا له إن لا جرب تاجين بحين مساعدة أما تاجر وأنا قبل عنه هنقطة من عيدا هنقطة من لغالة وأدوبتي هاي بابور أنا حبض كريم ودوري تدوات كله هنا أمر لو توجد وزارة القشان لقى marka hawlihii ay ku tabarucayeen ciidan madax xoogga dalka Soomaaliyeed ay bay soo balaadhiyeen waxaan rabnaa gobolkan Galmudug dowlad goboleedka Galmudug waxa uu soontay in dhawaan ka dhici doonto dib u heshiisiin kadibna doorashadii marka inta ka horeysa inaanu nabadgelyada sugno ciidamada aan ahayn kuwa dowladda laga dhigo dowladda si muxuu ahaa nabadgelyo ah ay arrimaha la rajeynaya ay u dhacaan